Asalaamu calaykum. Insha Allah maanta waxaan la wadaagi doonaa macluumaad aan ka soo helay shirkadda shirkadda OneCoin. Marka insha Allah macluumaadkaas ayaan idinla wadaagi doonaa. Waxaana rajeynaa insha Allah inaad ka faa'iidaysan doontiin. Sida aad ogtihiinba waxaa la xiray gabadha OneCoin aastay walaalkeed. Marka gabadha walaalkeedna waxaa lagu xiray Maraykanka. Marka dadkiina qaarkiina waa ogtihiin, qaarkiina ma ogidin, laakiin intii ogna maasha Allah, inta aanan ogeyne waxaan ugu talagalay inaan la wadaago macluumaadka aan soo helayne maahan wax aan jeebkayga ka keenay, waa macluumaad joornaallo lagu kalsoon yahay wax ka qoreen, dad kale oo ka qorayne oon dadka aan garanay Ingiriiska aan af Soomaali ugu dhigo oo wixii aan ka fahansanahay aan uga sharaxo. Bitcoin oo OneCoin waxa ay dadka u galeen ama sababaha keentay in ay dadka galaan ama dadka galabo markii la baaray waxaa la ogaaday OneCoin dadka aanan aqoonta u lahayn cryptocurrency waxa ay tahay ama digital currency waxa ay tahay maqlayna 2017 16 ilaa 18 markii ay Bitcoin ama cryptocurrency-ga aadka loo maqlay ay saas iyagoona aqoon u lahayn ay isdhaheen meeshan waxaa laga helaa lacag aad iyo aad u fara badan. Marka journaalkan insha Allah hoos idin dhigi doonaa isagoo Ingiriisa wax walba step step ayuu u sharaxayaa. Journaalka wuxuu leeyahay shirkadda OneCoin lacagta ay qabatay ama lacagta ay gacanta ku dhigtay waa 3.3 bilyan, waa 3.3 bilyan oo euro. Marka adiga caadi ahaan waxay noqonaysaa 3.5 bilyan US dollar meelahaasay noqonay. Kole maahan milyan, waa bilyan. Dadka galayna waxaa lagu qiyaasay 3 milyan oo qof. Wadamada aadka u galayne waxa u badan ama aadka loogu soo jiito barnaamijkan waxaa u badan wadamada reer galbeedkan ay yiraahdaan adduunyada saddexaad ama dadka badanaa ka yimid adduunyada saddexaad oo aanan helaynin macluumaadka sida ay tahay ama informationka. Qof walba oo OneCoin kuusoo sheegana ama OneCoin kuusoo sheegana ma uusan kuugu soo sheegin inaad adiga faa'iido ka hesho ee wuxuu ku xisaabtamay commissionka 10% ama commissionka uu kaa helayo ku xisaabtamay. Laakiin qof faa'iido usoo sheegaya waa dhif saacadda xilliga aan taaganahay zamankan. Marka waxaan geliyey Google-kan geliyey, waxaa jira wax Google lagu ogaado site walba inta uu popular yahay ama inta la galo oo dad galo. Marka site-ka markaan geliyey magacii waxaa ii soo baxay wadamada OneCoin aadka u galay. Ilan waxaan rabaa inaan xaqiijiyo journaalkan waxa ay qoreen inay sax yahay inay beenta. Wadamada aadka u galay oo aadka active-ka uga ah waa ujeedin wadankan Uganda, Tanzania, Kazakhstan, Thailand. Waa kaas maapkii waa kaas arkaysiin wadamada aadka u galay. Wadamada reer galbeedka dadka galayna 90% ayagana meelahaasi ka yimideen ama waa Soomaali ama Pakistan ama wadamadaasi ka yimaadeen dadka badanaa galay. Marka way jiraan dadka cadaanka barnaamij lagu qalday oo waxaa la dhihi jiray BitConnect oo iyagana lacag fara badan looga dhacay oo OneCoin ma ahan barnaamijka keliya ee lagu dhaca dadka. Waxaa jira asna barnaamijkan oo OneCoin BitConnect la yidhaahdo. Maanta qiimihiisa saacadan aan sameynay videogan qiimihiisa wuxuu joogaa wax 60 senti oo jooga almost $1 iska dheh. Taariikhdanne waxaan xasuustaa $400 oo ahay calaa coin January
2018 January 400 oo coin 400 oo dollar oo ahay calaa coin waa yani waa kan sida waa BitConnect markaan taariikhda dib u raacno oo dib u baaray wuxuu ahay 400 oo dollar ma dareemi kartiin farqiga u dhexeeya yani wax macquula ma ahan marka halka shay ay barnaamijyadana ay dadka ku qaldaan waa laba shay ama BitConnect ama OneCoin waxaa kaloo jira asna USI Tech mid la dhahayay oo aniga aan ka qayb galay OneCoin waa ku jiray ilaa haddana waa ku jira OneCoin BitConnectgaasna waa ku jiray marka waxyaabaha ay ku qaldaan waxaa ka mid a oo markaan usoo laabano OneCoin markaan usoo laabano waxaa la qabtaa xafladahaas marka waxay adeegsadaan community walbo dadka ugu yani dad iyaga ka yimid shakhsi iyaga ka yimid ayaa soo geliyo ma ahan qofka asaga iskiisa muusan u gelin OneCoin qof walba qofaa keeno marka adiga bal isweydii markii OneCoin lagu sheegay faa'iidada uu leeyahay isla markii waxaa kugu soo dhacday qof walaalka inaad gelisid laakiin qofkaas walaalka waxaa rabtay inuu adiga ku hoos istaago ama adiga ku hoos tago adiga su-aashaas isweydii marka waxay qabteen oo kale waxay qabtaan shirarkaasna ama eventyadaas ama waxaan hadda lasoo gelaya sawiradan lagu leeyahay eventiye waaye oo yani waa yani shirar wax kale ma ahan ee asaa lagu iibinaa marka yani waxaan xasuustaa OneCoin wuxuu ahay 30 centi wuxuu ahay 50 centi oo ahay markaasoo wuxuu tagay 30 euro tagay sababta uu ku tagana wax kale ma uusan ahayn exchange ma uusan soo gelin oo coin walbo oo suuqa la soo geliyo halkaana la soo geliya coin walbo oo suuqa la soo geliyo wax walba oo suuqa soo galo meeshaan soo galaan wax walba oo digital currency ku saabsan halkaan soo galaan coin marketka markaad tiraahdo coin walba oo soo galo Bitcoin Ethereum waxaana waa wada coinman ilaa iyo waxay dhan yihiin 2105 xabo oo coin intaasoo dhan waa iyagana waa cryptocurrency waa wada coin BitConnect 3.5 billion 3.3 billion euro haddii ay ku soo geli waayeen yani marketka ay soo galayaan cid walbo oo for example waxaan dhahaynaa hadda kii ugu dambeeyey oo lagu soo kii ugu dambeeyey oo soo galay marka meeshaan tiraahid waxaa ogaa kartaa coinka maanta soo galay coinka shalay suuqa soo galay coinka shalay soo kanoo kale wuxuu soo galay kanoo kale market capkiisa waa kana marka market capkiisa waa cadada lacagta uu ku fadhiyo ama lacagta uu ku fadhiyo marka waxaan tegaynaa meel xisaabta si aa wixii u fahantiin waa kana 100 adiga almost waa 200 oo kun iska dheh 200 oo kun oo dollar waaye yani 150 kun oo dollar waaye market lacagta market capkiisa lacagta cadada uu ku fadhiyo marka haddii OneCoin oo 3.3 billion dollar haysta ay soo geli waayeen halkan ma isweydiin su-aashaas adiga ma isweydiisid mar walbo waxaa lagugu qaldaa OneCoin wuxuu soo galaa suuqa haye waayahay suuq you soo gelin idhigba su-aashaasba meel idhig waxaa jiro coinman meeshan soo galay oo keenay kaar lagu iibsado kaar waxaa jira BitPay la dhahayo oon aniga lacag aan haysto kaarkiisa oo visa kaare dad badanna way haystaan kanoo kale waana coin waana exchange coinmanka lagu gadaa kaarna wuu leeyahay lacagtaada iyadoo digital ku shubanaysaa meeshaada waxaa kala baxaysaa mini bankiga kuugu dhow markaan soo laabano OneCoin waxaa la isku raacay barnaamijka ugu weynaay ee taariikhda soo mara ee lacag intaas la eg qabta dadka iyagoon wax
yacni waxooda aan kontroli karin ama waxooda aan gacanta ku haysanin marka midda keliya ay yacni heerkaas ku gaareen waxaa waaye coinka iyagaa controlay marka one coin gashid waxaaga isla markii ma la bixi kartid yacni mar walbana waxaa ku ogaahaysaa inuu barnaamijka tuug yahay inuusan tuug ahayn $10 geli meel $10 iyadoo sideedii soo cesho bal koontadaada ku soo cesho adoona qof kuu dhexaynin hadduu barnaamijka lacagtaas ay ku soo noqo $10 ama €10 barnaamijkaas waa barnaamij sax ah okay marka waxaan rabaa haddana coin hadda waxaa jira muddo ku jiray koomanka ka mid a oo yacni lacagta ay leeyihiin waa 30 milyan waa yacni waa coinkan 30 milyan waay so almost market capkiisa lacagta cadad oo ku fadhiyo oo dhan waa 30 milyan haddana coinkan marka fiirisid inta waxay arkaysa waxba ma ahayn $100 kaloo kan haddaa gashid $100 haddaa gashid gasho lahayd xilligan 2017 almost 10,000 aa heli lahayd maantana coinkan aad ayuu u kacay 41 senti waay sababta keentay coinkan shirkadda mastercard ayay dhiil la galeen coinka waa kaasaa shirkadda mastercard ayay dhiil la galeen policepay mastercard magaca layskama isticmaali karo loogadan sababtoo dhibaato weyna kaaga imaaysa magacoodana waa arkaysaa grosscoin so xataa aqal waxay ahayd one coin haddii aan dhegaysanayaan intaasoo dadaa lacag aad ka qaadateen oo aniga aan ku jiro xataa yacni sameey mastercard ama visacard ama coin aan lacagta kula baxno marka keliya oo aan maqlo one coin aa meel lagu isticmaalay one coin lacag xij lagu gatay one coin sababta xij lagu gata ama sababta wax loogu gada aan kuu sheegaa waxaan fiirsaday video oo qof ka soo duubay waddankeeni uu leeyahay one coin dukaankan lagu isticmaalaa war dukaamanka Soomaaliya waxaan lagu isticmaalay xitaa visa kaarka waxaysan lahayn meel visa kaarka la geliyo oo lagu iibsado kaarkaaga bangiga Yurub ku haysid aysan lahayn so one coin markaas lagu isticmaalaa one coin waxaa loogu isticmaali karaa in qofka dukaanka iskale aad dhiil la gashid qofka dukaanka iskale coinka aad ku wareejisid coinmanka haysatid asagana oo ku siiyo waxa aad rabto freeya haddoo agency yahane agencyga in uu ticket kaa iibiyo laakiin meesha lacag sii lahayd aa one coin siisid marka hadda waxaa lagu leeyahay one coin waxaa lagu iibsaday ticket one coin waxaa lagu iibsaday gaari one coin waxaa lagu iibsaday one coin horta waa inaan visa card aan helno qof walba 3 milyan oo qof inaan wax ku gada karno aa la rabaa marka one coin kan soo noqeynaa kan waa ka soo noqonaynaa marka macluumaadkii one coin faa'iidada ay sameeyeen waa tana faa'iidada keliya oo naag markii meeting iyo wixii dhan laga jaray 2.2 si ilaa 2.5 bilyan oo dollar oo faa'iide profit waa arkaysid oo faa'iide oo waxba ku jirin marka inta kale waxay ku baxday meetingka iyo waxyaabahaas iyo barnaamijyadaas marka waxaan idinka codsanayaa dadkiina ilaa barnaamijkan oo meel u dhaco yacni qof kale oo Soomaaliya ha gelinina yacni ninka hadda la xirayne gabadhan walaashiisa ma isweydiisan waxa ay ugu wareejisay barnaamijka gabadhan walaashiisa 2017 ayaa dacwo lagu soo oogay marka si aysan iyada barnaamijka uusan u saameynin ay waxay ugu wareejisay teamkii one coin iyo walaalkeed okay teamkii one coin iyo walaalkeed ku wareejisay xataa waxaa aniga yani waa sii akhri kartay macluumaadka waa kana xataa yani macluumaad waxay qorayaan journalka in markii ay limitka ay rabaan gaaraan one coin iyo one coin teamkooda in gabadha ama qofka meesha ka ah inay lacagta sidii ula cararto ay qof kale magaciisa ku wareejiso marka meeshaan ku qoran tahay marka wax walba meesha idin dhiga insha Allah macluumaadkan intaas aan ku soo gabagabeynayaa wax oo aniga aan yani
qoray ama wax aan madaxayga ka keenay ama wax aan wada mal awaalina ma ahan haddii aan qaldanahayne qabta oo isaxa oo yacni soo sheega wax aan ku aamino war xataa tiimamka haddii aad maqashiin tv-ga ama dadka tiimamka soomaalida waxaa samayseen wax kale ha samaynine xataa kaarbangi ha samayso haddaysan samayn karin kaarbangi xataa marketka ha soo geliso suuqa wax lagu kala iibsado ha soo geliso si aan wixii uga aamino haddii kalene wixii soomaaliya ka sabra wixiina wixii yani ama aan ka sabarno waxa ama u sabar ama ka sabar laakiin maanta dhan yani wax aanan meesha aalin inaan isku mal awaalno ma ahan oo runtii in laisku sheegaa fiican marka insha allahna videoga intaasaan kusoo gabagabeeyaha mana ahan inaa ii fahantiin inaa aniga OneCoin dhaleeceehayo laakiin inaan runta ka hadalno oo runta isku sheegno hebelaa xun iyo heblaa xunna ma qusaysa videogan wax aan soo arkay oo qofkiin ingiriiska yaqaanana waxaa ka hadlaya xitaa yarkan oo luqadda ingiriiska ayaa ka hadlayo marka asna waa baari kartiin asna waxaan idin dhigayaa insha allah meesha hoose comment iisoo dhiga waa kana yarkan asna aad uga hadlayo oo OneCoin oo ingiriisku sharaxayo marka dadkiin ingiriiska fahansan marka comment iisoo dhiga insha allahne waana mahadsantihiin akhyaarta sharafta leh